shirarkeena isdaba jooga ahaa bariyahan ku saabsanaayeen marxaladda kala guurka runtii madasha murashaxiinta waxay aad iyo aad uga xun yihiin in waqtigii dawladda loo asteeyay uu dhamaaday iyadoon doorasho dhicin laguna heshin xilligan waxay ahaaday madaxweynaha doorashadiisa kale inay dhimanta ama ugu yaraan heshiis lagu yahay habka doorashada iyo waqtiga qodobka labaad waxay ahaaday madasha midowga murashaxiinta maadaama ay yihiin dad xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay haddana u taagan xilka madaxnimada inay qayb ka ahaadaan wada tashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka qodobka saddexaad in dad badan oo kale oo saamilay ah oo ay had inay ka qayb galaan aan laga qayb galin oo ama ay ka mid yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka uu mithlo iyo dadka uu mithlo iyo ururada bulshada iyo dadka loo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka qodobka afraad haddii uu dhamaaday muddaxileedkii dawladda baarlamaanka waa soo dhamaaday madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 February oo saacada ay naga xigaan marka maadaama ay uu dhamaaday waqtigii loo idmaday dawladda wax walba oo tilaabo ah oo loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku beesgareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliyeed inuu ku beesgareysnaado maxaa yeelay dawladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti waana soo dhamaaday qodobka ugu dambeeya inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku muddo kororsi inaysan marnaba aqbalaynin wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed aad iyo aad u mahadsantiin maanta ma ku ogolaadahay waa maasantahay magacii waa muhiim soo qeexay waxaan ka tirsanaa FTV waqtigii doorashadu waa dabcan ay dhici lahayd waa la joogaa sida aad sheegaysaan idinka iyo dawladda dabcan iskuma dhow marka haddii doorasho ay dhici weydo maxaa idinka idinku sheegaysaa waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah waxaan u maleynayaa inaad arkayseen maanta inaan bilowno wada tashiga bulshada waana soconayaa waxaa loo baahanayaa gobol Soomaaliyeed oo Soomaalida isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qaban karo marka anaga hadda waxaan wada bilaabnay wada hadaladii qaybaha bulshada odayaashii maanta la kulanay waana wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaanaa tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socdo ay u imaanayd